السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مالين wanaagsan daawadayaal meel kasta oo dunida nagala socotaan maalmo talaada bisha November 18 sanadda 2025 qodobada darajada wal doontaan waxaa kamid ah ciidamadii ugu badnaa ayaa maanta ay Soomaaliland geynaysaa gobolada galbeedka Soomaaliland gaar ahaan gobolka Saraal kadib markii gudaha maamulka gobolku ay codsadeen in la soo xoojiyo markaa difaacyada ciidanka ee halkaasi jooga. ciidamada Soomaaliland ee ku sugan galbeedka Soomaaliland tiradoodu waa ay koobnayd balse waxa ay Soomaaliland doonaysaa inay xoojiso kadib amar diidooyin ka imaaday markaasi go'aanadii laga gaaray xaaladii magaalada Zeylac oo xukuumadda Soomaaliland markaasi ay go'aamisay in wax shir lagu qaban karin magaaladaasi Zeylac ama guud ahaan wax xaflada lagu qaban karin. welina waxaa jira dadka guud ahaan badhaga adeegaya amarka xukuumadda Soomaaliland ka soo baxay. haddaba waxaan eegi doonaa guud ahaan talaabada ay qaaday xukuumadda Soomaaliland ee ay ku xoojinayso deegaanadaasi iyo amar diidooyinka ilaa iyo hadda markaasi laga soo sheegayo. dhinaca kale taliyihii hore ee ciidamada RRU-da ee la dagaalanka argagixisada ayaa waxaa loo magacaabay taliye xigeenka ciidamada booliska Soomaaliland. taliye Tiir ayaa kasoo muuqday markaas saraakiisha ugu sareysa ee ciidanka booliska Soomaaliland saacadihii la soo dhaafay. madaxweyne Cabdiraxmaan Ciro ayaan u magacaabay xilkaasi. dhinaca kale dadkii xogtooda lagu soo bandhigay ama guud ahaanba la jabsaday ayaa warbaahinta ama qaar ka mid ah guud ahaanba wargeysyada ugu waaweyn ee qaaradda Afrika waxay soo dhigeen ama guud ahaan ay soo bandhigeen wadamadii ugu badnaa ee muwaadiniintooda ay wajaheen xogtaasi markaasi la jabsaday. waxaana ka mid ah markaasi wadamo qaaradda Afrika ah oo 4 wadan ayaa markaasi ugu badan guud ahaan wadamada muwaadiniintoodu ay xilligan wajahayaan cabsida ugu weyn. waxaan eegi doonaa dhinaca kale maamulka Puntland oo 7 maalmood u qabtay dadka degan deegaanada markaasi lagu dagaalamayo ee ciidamadaasi maamulka Puntland ay ku dagaalamayaan kooxaha argagixisada. haddaba maxay tahay markaasi amarkan cusub ayaan eegi doonaa sababta dadkaasi loogu qabtay in 7 maalmood ay ku banayaan ama ay kaga guuraan deegaanadaasi. maxayse Puntland doonaysaa inay markaa deegaanadaasi ka samayso. wasiirka arrimaha gudaha ee maamulkaasi Puntland oo booqday deegaanadaasi ayaa hadalka uu ka soo yeedhay. waxaa dhinaca kale aan eegi doonaa dhaxal sugaha wadankaasi Sacuudi Carabiya Boqor Salmaan ayaa booqanaya wadanka Mareykanka xilli guud ahaanba Yuhuud ay tilmaantay inay aad uga walaacsan yihiin Mareykanka iyo Sacuudi Carabiya iyo soo kale Trump uu ogolaanayo markaasi Maxamed bin Salmaan in awoodo dheeraada uu hadda yeesho isla markaana dalkaasi markii ugu horeysay uu yeesho barnaamijka nuclear-ka ah. waxaana Yuhuud ay leeyihiin Trump waa la laaluushay lacago fara badan ayaana lagu bixinayaa guud ahaan in arrinkaasi laga dhaadhiciyo iyo weliba in diyaarado uu ka iibiyo xitaa wadankaas Sacuudi Carabiya iyagoo ka cabsi qaba mandaqada cid ka xoog badan inay imaato iyagu ma doonayaan oo saameyn markaasi yeelata. qodobadaas iyo qodobo kale faahfaahsan ay barnaamijka maqli doontaan saaxiibayaal soo dhawaada. aan ku bilownay wararka naga soo gaaraya Soomaaliland waxay sheegayaan in ciidamo kala duwan oo aad u badan markaasi saacadihii ugu dambeeyay loo qaaday dhanka gobolka Saraal kadib markii maamulka gobolkaasi ay codsadeen in la soo xoojiyo difaacyada ciidanka militariga Soomaaliland ee goboladaasi ku yaala ama deegaankaasi markaa ku yaala maadaama ay jiraan amar diidooyin laga hor imaanayo guud ahaan go'aankii xukuumadda Soomaaliland ay ka soo saartay xaaladda magaalada Zeylac oo maalmihii ugu dambeeyay markaasi ay hawlo ka taagnaayeen. balse ugu dambeyn wafdi booqday oo uu hogaaminayay wasiirka arrimaha gudaha iyo amniga Soomaaliland oo halkaasi tagay ayaa waxa ay tilmaameen in wax markaasi xaflada oo lagu qaban karaya magaalada Zeylac inaysan jirin isla markaana ay taasi dan ugu jirto dadka deegaanadaasi wada degan ee walaalaha muddada dheerna markaasi wada deganaa. taasi oo keentay in dadka qaar ay ka biyo diidaan isla markaana Soomaaliland ay u arkayso inay jiraan mashaariic dibadda laga soo riixayo oo halis lagu gelinayo markaasi dadka deegaanadaasi. waana sababta keentay in hadda markaa ay Soomaaliland xoojiso difaacyada ku yaala markaasi ama ciidamada qaranka ee jooga markaasi deegaanadaasi oo lagu soo daro markaasi ciidan dheeraada. taliyaha ciidanka aaga markaasi galbeed ee Soomaaliland ayaa codsaday in guud ahaanba la soo xoojiyo ciidamo dheeraada lagu soo daro markaasi ciidanka halka ku sugan. waxaa Soomaaliland lafteeda markaasi ka cabsi qabtaa in ay kusoo hoos dhuuntaan dad ujeedooyin kala leh oo doonaya markaa deegaanadaasi in khalkhal laga abuuro. waxaa la arkayay dadyaabo kala duwan oo aanan badnayn oo iyagu xilligan u muuqda inay kasoo horjeedaan go'aanka ay gaadhay xukuumadda Soomaaliland ee magaaladaasi Zeylac markaasi lagu soo gabagabeeyey. waxaa sidoo kale dhawaaqyo kala duwan ay kasoo yeedhayaan banaanka Soomaaliland wadamada Djibouti iyo sidoo kale wadanka Ethiopia laftiisa markaasi oo ay warar kala duwan kasoo baxayaan iyadoo aan ahayn markaasi dowladaha Djibouti iyo sidoo kale dowladda Ethiopia ay jiraan dad iyagu markaa shakhsiyaad oo iyagu si gaar ah arrimahaas u riixaya walow Djibouti lagu eedeynayo inay wax la ogtahay.
dhinaca kale madaxweynaha Somaliland Cabdiraxmaan Ciro ayaa saacadihii ugu dambeeyay waxa uu magacaabay taliye xigeenka ciidanka booliska ee Somaliland waxaana uu magacaabay taliyihii hore ee ciidamada RRU-da ee la dagaalanka argagixisada. ciidamadan ayaa waxay ahaayeen markaas ameelaha haddaba ay yihiin qaar ka mid ah ciidamada markaasi guud ahaanba ugu dhaqaaqa badan ee Somaliland gudaheeda marka la joogo howlaha gaarka ay qabtaan. Haddaba taliye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdulaahi ayaa maanta waxa uu sareeyay guuto Cabdi Axmed Tiir inuu noqdo taliye ku-xigeenka koowaad ee ciidanka booliska Somaliland. taliska ciidanka booliska Somaliland waxa uu u hambaleynayaa taliye xigeenka cusub ee ciidanka booliska Somaliland kaas oo door muhiim ah ka soo qaatay aasaaska dhismihii iyo waliba hirgelintii ciidanka Somaliland. waxaana uu taliyahani ahaa taliyihii markaasi ama raggii ugu horeeyay ee markaasi noqda ciidamadaasi aasaasa ciidanka la dagaalanka argagixisada ee loo yaqaano RRU-da. dhinaca kale maamulka Puntland ayaa waxa ay soo saareen war ku aadan in guud ahaanba ay 7 maalmood u qabanayaan dadka degan deegaanada markaasi lagu dagaalamayo ee ku yaala markaasi caalamiskaad. waxaa maamulka Puntland ay u arkeen caqabad weyn inay ku yihiin dadka deegaanadaasi degan oo ay u arkayaan in saadka iyo saanadaba ay qaarkood u kala gudbinayaan kooxaha argagixisada ee ku sugan deegaanadaasi ay kula dagaalamayaan. Puntland ayaa dadkan ku nool tuulooyinka ku hareeraysan toga Baalade u qabatay muddo 7 maalmood ah oo ay ku baneeyaan deegaanadaasi. maamulka ayaa sheegay in tallaabadani qayb ka tahay isku dayga lagu joojinayo sahayda lagu tuhunsan yahay inay gaadho ururka Daesh kaas oo mararka qaar la sheegay in uu raashin iyo xoolaba ka helo dadka deegaanka. hay-adaha amniga ayaa si gaar ah dadka deegaanka tasjiic ugu eedeeyay inay xiriir ganacsi la leeyihiin Daesh waxayna ku eedeeyeen markaasi ama guud ahaanba ay maamulka Puntland ku eedeeyeen dadkaasi in ay si gaar ah ula shaqeeyaan. waxayna ku adkaysteen in dowladda ay khasab ku tahay inay qaado tallaabooyin ama tallaabo ka hortag ah ama ka hortagaysa in kooxdaasi hesho gargaar ay kusii howlgasho. maalmihii lasoo dhaafay ciidamada amniga ayaa xidhay rag iyo dumar lagu tuhmay inay raashin iyo badeecooyin u qaadeen Daesh kuwaas oo lagu qabtay iyagoo kasoo laabanaya toga Baalade. sidoo kale qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa lagu eedeeyay inay gacan ka geystaan shaqada miina dhigayaasha kooxda. go-aankan ayaa abuuray cabsi iyo weliba walaac xoogan oo ku dhacay odayaasha iyo weliba nabadoonnada tuulooyinka lagu amray inay ka guuraan kuwaas oo sheegay in bulshada ay duruufo adag oo abaar ahi haystaan ama ay hayaan islamarkaana aysan haysan awood ay kaga dhaqdhaqaaqaan markaasi ama ay ku dhaqaaqaanba oo ay ku tagaan meel kale. nabadoon Cabdiqaadir Axmed Xarago ayaa dhankiisa ku eedeeyay madaxweyne Deni in uu qorsheynayo barakicinta shacabka si dhulka uu ugu banaanaado markaasi Imaaraadka oo uu sheegay in ay rabaan in halkaasi ay ka qodaan macdan. wuxuu sheegay in dadka deegaanka aysan awood u lahayn barakac kale islamarkaana aysan wax xiriir la lahayn kooxda Daesh. nabadoonku waxa uu ugu baaqay dowladda inay ciidamo u dirto markaasi tuulooyinkaasi si loo qabto markaasi cid kasta oo Daesh la shaqeysa halkii shacabka lagu khasbi lahaa inay markaasi ka guuraan guryahooda. waa su'aal ku dhigay markaasi nabadoonkaas. dhinaca kale dadkii xogtooda markaasi lagu guud ahaanba dhacay ama lagu jabsaday barnaamijkii e-visaha ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayaa wargeyska Business Inside Africa ayaa wuxuu sheegay in guud ahaanba ay ugu badan yihiin wadamo 4 oo qaaradda Afrika markaasi ku yaala. waxaana uu tilmaamay in wadanka Kenya uu yahay markaasi wadanka muwaadiniintiisu ay ugu badan yihiin guud ahaanba xogahaasi la jabsaday khatarna ay ugu jiraan markaasi kooxaha argagixisada. waxaa sidoo kale uu sheegay wadanka Koonfur Afrika inuu isaguna yahay markaasi wadanka labaad ee isaguna markaa xogaha guud ahaanba wadamada xogtooda la jabsaday markaasi uu qayb ka yahay. waxaa ka mid ah Ethiopia, waxaa ka mid ah sidoo kale markaa Soomaaliya. waxa uu tilmaamay in guud ahaanba ay afartaasi yihiin afarta ugu daran ee hadda xogahooda markaasi ay la jabsaday cabsi weynna laga qabo kooxahaasi markaa argagixisada ah inay markaasi u gacan galaan. barnaamijka e-visa ee dowladda federaalk ee Soomaaliya ayay dowladda Soomaaliya xaqiijisay in guud ahaanba loo dhacay oo la jabsaday. waxaana wadamo badan oo qaaradda Yurub ku yaala ay walaac xoogan ka muujiyeen qaabka uu u dhacay markaasi guud ahaanba ama uu u dhacay barnaamijkaasi jabsashadiisa oo ay sheegeen in dhowr
iyo 30,000 oo qof markaasi ilaa iyo 35,000 oo qof ay xogtooda markaasi banaanka usoo baxday. dhinaca kale wararka markaasi ka imaanaya caalamka waxa ugu waaweyn dhaxal sugaha wadanka Sacuudi Carabiya Maxamed bin Salman ayaa booqday markaasi aqalka cad, waxaana ay kusoo beegaysaa booqashada uu markaasi bin Salman ku tegay aqalka cad ama uu ku tegayo in guud ahaanba ay doonayso dowladda Sacuudi Carabiya inay ka dhacayso madaxweynaha dalkaasi Mareykanka Donald Trump in Sacuudigu uu yeesho markaa diyaarado gaar ah oo uu ka gato markaasi dalka Mareykanka, sidoo kalena in barnaamijkiisa nuclear-ka uu bilaabo markaasi bacrimintiisa iyo hawlihiisa iyagoo la heshiiyay wadanka Pakistan. arrimahan ayaa la tilmaamay inay walaac xoogan iyo cabsi ku abuureen Yuhuudda, isla markaana ay bilaabeen qayladhaan xoogan oo ku aadan in Trump la siinayo lacag isla markaana lagaga bedelanayo halis weyn oo dadka markaasi Yuhuudda la gelinayo. Waa siday hadalka u dhigeen, waxaana ay doonayaan kaliya in iyagu markaasi awoodda ay lahaadaan guud ahaanba bariga dhexe iyo wadamada qaaradda Asia, carabtana markaasi ay far ugu yeedhaan. balse hadda waxay u muuqataa balaarug weyn in guud ahaanba uu soo galay carabtu wixii ka dambeeyay weerarkii lagu qaaday Qatar oo indhaha u kala furay markaasi wadamo badan oo carab ah, haddana bilaabay qorshihii iyo weliba mabaadi'dii iyo guud ahaan baraarugii ay isku difaaci lahaayeen. waxaana isla markiiba Sacuudi Carabiya oo kulan degdeg la qaatay wadanka Pakistan, kadibna waxay la hadleen guud ahaan madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump. Trumpna hadda waxay warku tilmaameen inuu u sheegay bin Salman in xogaa kharash uu iska bixiyo hawshiisana uu iska wato. akhyaarta sharafta leh hawada nagala socoto tan iyo kulanti dambe, nabadgelyo.